muuqaalkan waa guryo ka samaysan cooshado oo qaab ahaan u eg buulal shimbireed waxaana ku nool barakacayaal Soomaaliyeed oo ka soo barakacay dagaalo ka qarxay gobolka Shabeellaha Dhexe sanadii 2013 oo hadda laga joogo muddo 4 sano ah waxaana ay ku dhibaataysan yihiin kaaman barakacayaal oo ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle noloshoodu waxay u maareyn jireen siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay inay dhagaxa jabiyaan waxaana xilligan soo wajahday caqabado ku aadan in dowladda Hirshabeelle ay u diiday dhagax jabintii bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed ayay uga dalbadeen dadka muslimiinta ee ku nool dunida inay ku soo caawiyaan maadaama kaamanka barakacayaal ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ay yihiin kuwa aan awoodin xitaa inay afurka dabka shitaan waxaana muddooyin ka hor dadkani ahaayeen dad maalqabeen ah oo leh deegaan iyo beero ay markaas iyagu leeyihiin balse ay ka soo barakaciyeen dagaalo sababay guryo la gubay iyo meydad la kala jiitay qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool Jowhar oo la hadlay barnaamijka Shaashakeer ayaa yiri unuka waa barakac jilyaalanahay unuka dad oo beero leeyahan ahayn waxaan ku hayna male meeshaan dadka walaalaha muslimiinta oo na dhaamo waxaan rabnaa inay anfurna siiyaan waxay nagu dhaamaan siiyaan saasaan ka codsahaynaa dad masaakiin oo mataqaanaa meeshaan degan ayaan nahay anigoo ku hadlaya codka mataqaanaa qaybta aan hadda dhex joogno oon ka mid nahay la yiraa kaamka Tawakal anigoo odayga ka gudoomiye ah oo mataqaanaa gudiyaashii kalena ay ag fadhiyaan waxaan codsanaynaa in mataqaanaa aan u mahadcelinayna intii noo tomid oo na soo booqatay booqashadaas oo ku sharfayno ku soo dhaweeyayno maamulka iyo hay'adaha madax bannaan oo dadka tabaruco waxaan ka codsanaynaa in mataqaanaa naga soo gaaraan ay macalimiinsigooda wato qof meeshaan ku midanaha oo ka beeraley ahaa jirna ilaahay amarkiisa meeshaan ku nimid haddana ninka naga roog oo adduunka joogo oo muslimiin oo wax noo gali karo amba anfur amba waa kaas waxaan guri saarana wax kastaba inkastoo wuxuu ku rooyahay inaan ka helnaan rabnaa macallin ma inta ma joogaanayo qax maahan ma ah mani uu ka gurdo mani laakiin dad ilaahay ma soo kasiyana oo beer fala jiray hal iwaayelkayna inta dad isdaliyo soo qaxniyaan guriga jiryaale muddo 4 sano aan qaxootinahay ninka wax nagu tiri karo walaalahayniyow waa idin baahannahay Ramadaan aan ku jirnaa jibaan soo falow hayna ilmi sida ku arsaaqow hayna marka dad soo falno iska suuxo hayna biyana uu bilbilow haya laga soo gaarsii walaalahayow waa idin barayna oo qaxooti ku soo kacay dagaaladii 4 sano ka hor oo meeshan ku yimid haddana iskiga dhibaateen maha aan joogno nin walba islaam oo wax taqaysan karo inuu laga soo gaaraan rabnaa waxaan qabnaa dadka qoob oo tabarta ku yartahay ee jibaal u kacay isnaay in aado jibaal aado koonka xagga jibaalka soo falaay ee afurka dhigay haday yimaadaan bisha Ramadaan oo barakada badan leh oo waxaan ku wiri sideedaba la darajeeyo ninkii wax lagu kaalmay karo waa aga baahanahay أنا محمد نور بركة عجل يالا نهاي لحسن أقلقان لفضياي محيلان تضوي الآذنة أو الماء وإي جوغان محيلان وحقسو قلنا ملع وحقم باهنا مسلمين تا أنا إي كالميسو وإي قرقارتان ربا ساسا جرت بسم الله الرحمن الرحيم رمضان aan ku jirnay bishi barakaysan walaalayaal hadaad wax noo gari kartiin oo wax ina sii kartiin inaad gacanta inaga qabatiin oo bishaan Ramadaan oo naga bixiseen ayaan doonaynaa mid kale waxaan rabnaa hooyn ma haysano siyeeri ma haysano bacyaal waa inaan noo soo dhiibo siyeeri aan noo soo dhiibo hooy inoo dhiso oo noo suubiyo meeshaas oo wixii nooyin dhinacaan dhigalahan baalmaan iyo qabta doona ma soo ka foga doontii aan ku jirnaa bacdigeeda ilaahay dadkan oo hay'adaha barakaysan oo meelahan ilaahay bishaan barakaysan wax sadaqaysto haayo inay wax noo keenaan bishi Ramadaan oo barakaysan ninkii walaalo wax noogu tari karo oo noogu daryeeli karo daryeelka caafimaadka waxaan u baahanahay hooy ma haysano waxaan rabnaa ciyaalkayna waxaan u xareyna ma hayno waa mar qaraaco waxaan u baahanahay in nagu daryeeshaan oo ilaahay baa daryeel haaya haduu rabbi idin soo dhiibo oo noo siisaan ilaahayna idin ka soo qaado ilaahay baan idin soo dhiibo waxaan u baahanahay inana daryeeshaan oo meesha bishi barakaysan oo Ramadaan aad wax nagu tartaan ilaahay baa wax nagu tari kare mahmaa Soomaaliyeed ayaa oranaysay baahi badan bushi badan iyo baryo badanba waa lagugu nacaa balse barakacayaasha ku nool Jowhar
ayaa ah kuwo aanan intaasi ka maarmayn in ay sameeyaan